السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنكي حلقون تداها قيس عبد الله كاري مرقاتي النول عقل كسوم التليس كاري قيره هذه ردين سلامي أصحابتا لنك فيسبوك يقحرن وشرفت له waxaan u soo galay oo hadda aan u soo galay saacadan waa hadal degdeg oo hadda soo gaaray oo cusub aan u soo galay intiina igu xiran oo sharafta leh oo mar walba xilguntada media ka daawata wararka waxaan ka codsanayaa page-kan follow soo dheh like garee share garee meel walbana gali afkaaga ayuu ku hadlaa page-kan waxa adiga aad macnaha aad meel dheer gaarsiin karin ku gaarsiinaya haddii warkaaga soo gaaranaan waa gudbinayaa waana waxaan ka ballan qaaday dadka aan afkooda ku hadlo oo maaragtay shacabka masaakiinta ah waxaan hadda soo gaaray oo degdega ayaan idin hayaa isgaarsiiya hawiye gaadmo la gaado iyo hal doorkooda la dilo kama dhamaado muqdishona gaadmo kama dhamaato nin walbaana ku aarsanaya muqdisho hawiye kaliya ma waxa isku laaya hawiyena lama laayo halkii nin oo madaxa u soo qaada halkii nin oo la arkay inuu hadli yaqaan halkii nin oo la arkay inuu wax tar leeyahay halkii nin oo isleeyahay qof uu qoodin kara wala gaada waana la dilaa madaxana lagu dhuftaa runtan sheegaya caawa mar walbana runta halkan la soo fariista anigu waxaan la xishoonayana maahan waxaan la cabsanayana maahan wax aan maaragtay facay wuxuu karay ama uu gartana anigu inaan la baqo ma ahan milyan hadda igu hortaagantiin oo qabiil walba tabtaasaan sheegaya aniga haddii ilaahay nafta uu ii deystay intaan noolahay waxaana noolaanayaa inta ilaahay igu talagalay ka badanna ma dhaafi karo ilaahay subxaanahu wa tacaala qof walba waqti uu siiyey waxaa hadda soo gaaray degmada hodan ninkii dhalinyarada ahaa oo bilaal bulshaawi ahaa oo tiktokan caanka ka ahaa dadka soomaaliyeedna qoodin jiray oo ayaantii abaartu dhacday maaragtay gada ka bilaabay inuu maaragtay caawina gaarsiiyo asagoo weliba meeshuu u dhashay laga baahan yahay mise gawaa iyo ceel cadda iyo halkaas inta abgaal degay inta hawiya degoo dhanba laga baahan yahay cunugaas yarkaa xamar ku dhashay qabyaalad ma yaqaaneen oo reegado oo wuxuu u geeyey ii sheeg cuntadii iyo cawanadii iyo wuxuu tiktok ugu arushasay soo caayeen weliba waxay dheheen reegado maaragtay waxay maaragtay ka mudneen uusan ka geynayso kasoo daba dheheen adiga hadda waxaas ma sheegaya kamana baraha bulshadana inaan soo marsiiyo ma fiicna ninkii isaga ahaa caawa isagoo fadhiya maqaaxi ku taalla degmada hodan oo dhallinyaradiisii la fadhiya ayaa 3 xabadood lagu soo riday 3 xabadood markii lagu soo ridana mid meeshaan ka haleeshay meeshaas qadaadka ay ka baxday qofkii la joogaa hadda soo warsaday oo taleefon ka soo dhigay midna way xagatay midna geesi ka martay waa la qaaday adigu xoogaa uu miir beelay ninku waana nin dhalinyaro weligiis wax ku dhicin uu naxay naxdiinkii uu naxay waxbuu la miir beelay saalada la galiyay waa laga soo bixiyay haddeertaana xoogaa dadkii uu kala yaqaanaha la yiri oo hadlaya una fiican yahay ninkii la joogay oo asaga dul taagnaa hadda wareystay wareysigiisa inaan editing ku sameeyo maan hadda idima soo diin karo waxa weeye marka waxaan rabaa inaan isweydiino culayska hawiye dul saaran kaligiis wuxuu yahay adigu ma ii sheegi kartaa caawa culayska dul saaran anigaas xil guntada live-ka facebook uga jira caawa haddaan muqdisho tago oo aan magaaladii aan u dhashay ah oo aan jooga dhowr beri midaan muqdisho u dhalan aan dhahaya ninkii odagaa facebook ka hadli jira waaye meeshaas joogaa waa gaadan yahay hala soo cuno وهذا النوع هوية يهين أنا كل شيء أديك هدا بحد في سنة وقربها تشوفه حال ليه هاي مدرر وكم قناة مقالة دي أنتوا سأفارق كرنا نقول باللعبين وسأباب القرن قربوه وحكسوا فهمه هلا عنا والوضع فنية وحكو دير لما يقانا هذا كفاية من الكعبي هل دور كنجي إن الجرد كنجي عقل كنجي مقاحية أنت اللي قلتكم مقاحية أنت اللي قلت إلى الصدق مركي كعانس ده نقول إن آدم مساجد كأه laba cunug aan dhaxu taagan bab hawi wax ka dhaadhacsan anaku inaan isdilna kaliya waa sax anaka ruux anaga way isdilnaa oo ciyaal yar yar oo la tashkiiliyay qaarkood wayna dilaan laakiin boqolkiiba 89 tobankaas ka reeb boqolkiiba 90 anaku gacanta la isku madilna qolyooyin kale aan dilo naga aarsanay wallahi hadii la soo qabto wabillahi hadii la soo qabto caawa dhaartay qofka dilaya magaalada muqdisho dadka ku sugan boqolkiiba 90 qabiil kale noqonayaan وبالله
waa waxaan u dhahaa maalin kasta hawiye saaxiib male waa waxaan u dhahaa maalin kasta hawiye deris male waa waxaan u dhahaa hawiye qof ka u naxaayo oo ka agdhow midna male waana la soo taagnaanayaa dee aniga waan ogsoonaa hawiye inay sheekadaydaan iyo ragga hadlaayo aniga ila midka oo soo gudbinaya warkaan inaysan wax ku qaadinayn waa oga laakiin ciyaalka yararka hadda dhalanaya aan talaalaynaa ninka bacmadooda lacagta ku shubanaya oo cunugaas bilaal bulshaawi caawa hadduu dhinto oo la garta ninkii dilay bacmadooda ka soo qaadanaya lacagta bacmadooda ka soo qaadanaya waxba ma gala kaas inuu dhinto maahan hawiye uu dhaafo maahan waxuu gala male laakiin waxaan isleeyahay ciyaalka yararka hadda dhalanaya aad tallaashid iyo maskaxdooda aan lagula yeelana isleeyahay kuwa 20 jiray 15 jiray maskaxdooda ayaan lagula yeelana isleeyahay aad tallaashida isleeyahay fiilo waxaan wadaa dheer oo aan ka soo buuxiyo hawiye fiiladaas antivirus ku jira virus ku jira wax walba ku jira antiviruskana waxaan ku dilayaa qoladii hawiye dili jirtay viruska waxaan ku dilayaa qoladii hawiye dili jirtay antiviruskana waxbaan ku dhaqayaa waa wadaa waan wadayaa ragaana iga sii daran aniga keligii isma ammaanayo rag waxaa jooga macallimiinteedii oo aniga aan ka meersaday hadalka ee aan ku hadlayaa caawi intaan u fiirsaday inay run sheegayaan inay been sheegayaan kuwa barofesoraha ku jira kuwa social media ka hadlaa ku jira nooc walba isugu jira maantay adiga hawiyaa oo fiirsanaya waxaa laga yaabaa inay ka dhaadhacsanta inaan waalanahay inaan qaribanahay inaan jaahil ahay inaan aqoon lahayn inaan waxba soo baran inaan stress hayo inaan meeshan ku dhaxwaashay in maaragtay jin iga hadal siinaya xataa ka dhaadhacayso saas ma ahan wallahi nabadan ku jira takhtaraan u tago waa soo baaro waa caafimaad qaba 100% wax aan qaba male maskaxiyan nin fiyoobana wallahi inaan been ku sheegay caruurtayda waa ila joogta iyo familkayga ujeedka aan leeyahay waxay tahay war haddaad laabanaysid oo dadkaaga u laabanaysid haddii midkii indheer garadkii iyo aqoon-yahankii iyo odagii iyo intii wax fahansaneed laga laayo sidee rag ula kaftami doontaa sidee ciyaalkaagu dambe adigu haddaad dhimato waqtigeediiaba ku jirtaa ciyaalkaagu say dad ula xisaabtami doonaan fiiri cunuga jaamacadda kaaga soo baxa markii la qarxiyo oo kow looga siiyo cunuga wax fahansana lagaa qarxiyo oo midabkii madaxa soo qaadaba madaxa laga jaro tusaale cunug laga keenay tuulo oo nabad ku jiray aan lagu keenaa xafiiska dowladana saa kuu fariisanaya magaalada u dhalataa lagu maamulaya waa waxaan rag ka celcelinaynay waa wixii rag nagu samayn rabeen waa wixii rag ciidamadii hawiye oo u qornaa ciidanka militariga iyo booliska iyo dharbaaxa ku dhufteen si mushaarka u diideen way dhacdade maxaa Cabdullaahi Farmaajo ka mid ah ciidanka labada shabeelle jooga shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe mushaar la'aan ay ahaayeen mushaar la'aan ganacsatada waxay siinaysaa mushaar taas waa ogsoona aniga qabyaalada looga goosto qabyaalad ma ahayne waxaa looga goosta hawiyan lacay baa looga goosta dadkan aan kala dhinaa leeyahay waxaa la qorayay laba qabiil xataa daaroodka la kala reebo ogaadeen lama qorin askari looma qorin majeerteenna askari looma qorin hawiyana askari looma qorin waxaa loo qorayay adriska nimanka la yiraahdo iyo waxaa loo qorayay raxweyn iyo mareexaan intaas kaliya Fahad Yaasiin iyo Farmaajo aan ku heshiiyay ujeedkuna waxay ahaayeen inay wadanka xukun military ku qabsadaan dadkan ka hor imaan karana ay dhinac isaga leexshaan oo hal u siibaan inta aan la leexin karin oo lala hadli karin xabad loo dilaa la rabo in walba meesha lagu tago inteena ka badbaadi inteena ogtiina ka badbaadi oo la qarxiyo oo generaala inteena maaragta ku siibatay intee nimankaas joogeen qofka tiisi waa dhamaataa wuuna dhintaa laakiin wallahi inaan idin ku sheegayni wax badanaa soo dhacay wiilkaas yarkaa caawo waxa loo dilaya caawo oo ka dambaysa dheef badan ma haysto hanti tiro badan ma haysto wax adduunyo tiro badan oo meel taala ma haysto rag hanti badanaa jooga waxa weeye wuu muuqday wuu soo baxay dadku ka dhex muuqdaa berri waxba ka dhaadhacsan ragga dhalinyarada wax fahmo weeye waana la bartay meel walba xafiis walba irid walba laga celin maayo aan ka reebno dadka kale dadkii annaka aan rabnay inaan meeshaan keenno aan ka reebno bab ka madaxa lagu dhufto ama al-shabaab ha loo adeegsado ama siyaasad kale ha lagu dilo secondly sheekada socotaa waxay tahay xasan sheekh maxamuud dowladdiisa qaabka micnaha looga nixinayaa waxay tahay dadka caanka ah oo la yaqaano indhuhu qabanayaan in lagu dilo xamar raggii horaa ka dambeeyay in lagu dilo xamar si xasan sheekh maxamuud loo tusa caalamka dhalinyaradii awal nabadda ku joogi jirtay inay magaalada ku dhimanayso waa qodobka kale ogtihiin oo la wareejinaya oo ilaa shalay ay maalaha ay wareejinayaan
CBBdii maxaa cabdullaahi farmaajo annaku teera waa naqaanaa cidda ka hadal siisa teera muddo dheer waa naqaanaa isagoo xasan sheekh caayaya oo si bareera u caayaya xasan sheekh dhahay waddankii u gatay dowladda maxaa cabdullaahi farmaajo markii cusbeed ninkii ka hadal siinaya lacagta siinaya waa naqaanaa Fahad Yaasiin oo ahaa haddeertaana ninka shalay soo yiri 100 maalmood ka hadlay xasan sheekh waxqabadkiisii Fahad Yaasiin oo ahaa waana naqaanaa Fahad Yaasiin wuxuu ku daamaya farmaajo waa nin farmaajo ku sixran oo maaragtay cali yara iyo raggaas iyo farmaajo ku sixran yihiin teera marka waxba yaan ka soo qaadin hadda halkan ka sheego wuu nagu gadbayaa magac kale nagu soo yeelanayaa bulshada wada baranaysa looma baahna inaan xayisiin u sameeyo looma baahna laakiin waxaan idin sheegayaa cawo waxaan idin sheegayaa nin walba meel u leeyahay muqdisho dad baa degan oo iska leh magaalo madaxdeeda iyo waxaasi waa la wada leeyahay markii laga soo tago war dadkaaga badbaadso nin walba meeshuu leeyahay iyo bartuu leeyahay hadago ninkii baahda isagaa isku baahda dee Soomaali way diiday inay nabad ku wada joogto ninka la dilayana waa adiga kaliya war dadkaaga badbaadso dadkaaga maalin kasta war fiiri inta kale qabiilada kala fiiri Soomaalida kala fiiri war xabad ma ka dhex socoto war dadkooda maal ugaarsadaa war ma yaka isdile Soomaalida arag tiirka lagu soo xiraa baydhabo qofkii qof dile meel kasta tiirka lagu soo xiraa meel walba adiga ma aragtay yaa ku aaray yaa ku dilay ila ayaa taa adigu magaca adigu qoladeeta ma istaqaanin miya war isku dhaamo aad baan ugu xumaa waxa ku dhacaya reer tolkay aad baan ugu xumaa Bilaal Bulshaawina waa wiil yar oo maaragtay ay soo gaartay caawi xabad ku dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u booqadhiyo hooyadiisna way ka naxday ilaahay ha u caafiyo wayna jecleed baraha bulshada ka fiirsan jiray hooyadiis aad u jeceshaa wiilkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u caafiyo asagana waxaan rajeynaynaa inuu caafimaado aqoon uma leeyahay Bilaal Bulshaawi inaan halkaan caawi uga duceeyana asagoo iguma soo qasbin laakiin waxaan ogsoonahaa dadka hawiye waa waxgalka dadka hawiye oo waxgalka waxa weeye ii sheeg in madaxa laga tooganaya anigu iga dhaadhacsan oo xaqiiqsanahay iga dhaadhacsan maana aan hubaa ujeedkuna wuxuu yahay hawiye ha lala dagaalo aqoon-yahankana ha laga dilo si aan u amarno maskaxdan uga qabsano ilaa meeshii nacfiga leedu degan yihiin meeshii Soomaali oo dhan isugu imaanaysu degan yihiin muqdisho caday uu degan yahay bad meeshii xeebta leedu degan yihiin si aan u amarno aysan naga fakan nimankan madaxaan ka garaacno ujeedku waa saas waan idin salaamayaa warkaasaan u soo galay degdega ah aad iyo aad aan idin salaamayaa waan idin jeclahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh